wararka baraha bulshada si aada la iskula dhexmarayo ee soomaaliya haddii aynu eegno maanta waxa ay ku beegan tahay 12 oktoobar waana maalinta calanka soomaaliyeed waxaa qeybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya maantoo kale laga xusaa 12 oktoobar maalinta calanka oo asaaskeedii ay kasoo wareegatay 8 sano guura calanka waxaa la sameeyey taarikhdu markay ahayd 12 oktoobar 1954 waxaana hindisihiisa calanka buluugan ee dhexda xidigta kuleh iska lahaa allah u naxariistee maxamed cawaali liibaan marxuumka ayaa markii uu sameeyey calanka waxa uu dood dheer la galay dad badan oo iyagu su-aalo kala duwan weydiiyey astaamaha calanka waxayna dood ugu weyn ka imaanaysay dhanka gumaystihii oo iyagu markii hore diiday calanka buluuga ee soomaaliya maxamed cawaali liibaan ilaahay jannadiisa ka waraabiye waxauu ahaa nin ay ku weyn tahay islamarkaana aada u qiimeeya walaaltinimada ummadda soomaaliyeed ee isku isir af iyo dhaqanba ah waxaana uu ka tirsanaa halgamayaashii xornimada doonka ee s y l goobtii ugu horreysay ee calanka soomaaliyeed laga soo taago ama laga taago ma ahan muqdisho waxa ay ahayd beerta xorriyadda ee hargeysa juun kadib burburkii qaranka soomaaliya waxaa soo baxaya in midabka calanka soomaaliyeed uu noqdo mid qofba waxa uu rabo sameeyo isaga oo buluuga raadinaya keliya laakiin calanku waa buluug khafiifa oo la mid ah kan cirka ah waxaa jira tiro iyo xisaab midab kasta iskale uu yahay oo lagu kala saaro waxaana dhihi karnaa midabka calanka waa marka la isu geeyo guduud cagaar iyo buluug waxauu noqonayaa xisaabta 172,212 ama wuxuu noqon karaa xisaabta niraahde 171 waa mar kale 4 midab ee kala duwan ayuu calanka noqdaa taariikhdaasi kooban ayaynu ka eegaynay dhinaca kale bal haddii aynu sii eegno saaxiibada aynu jecelnahayow abaabulkii ugu dambeeyey dagaalka ka dhanka al-shabaab haddii aynu eegno dowladda oo sheegtay in howlgallo gaar oo lagu dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ciidanka gaarka ee dowladda soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyey deegaanka buulo kuunto iyo deegaano kale oo dhaca dhul beereedka dhinaca waqooyi kaga beegan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa sheegay inay ku dileen 4 xubnood oo ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ciidamadu ay gacanta ku dhigeen hal xubin oo kale hub iyo sidoo kale gaari ay wateen kooxdaasi war ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan uu ka dambeeyey kadib markii ciidanku ay heleen xog la xiriirtay in tuulooyinka qaar ee al-shabaab si dhumaaleysi ay u tegayaan iyagoo doonaya dadka beeraleyda in xoolo badan ay ka qaataan saraakiisha dowladda ayaa aada uga digaya dadka beeraleyda iyo ganacsatada inay u hoggaansamaan amarada kooxdaasi al-shabaab dhinaca kale wararka naga soo gaarayo deegaanka iyo soomaan oo hoos tagta degmada buulo barde ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo al-shabaab dagaalkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisiinka iyo soomaan ay ku leeyihiin ciidanka isgarabsanaya dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegaya in dagaalkuni uu yahay mid aada u xoogan oo laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan balse aan la xaqiijin karin khasaaraha ka dhashay maadaama uu weli dagaalkaasi uu socdo puntlandna waxa ay joojisay kulan uu wasiirka dhallinyarada ku lahaa gaalkacyo maamulka puntland ayaa joojiyey kulan wasiirka dhallinyarada ciyaaraha soomaaliya maxamed bare uu la yeelan lahaa markaasi magaalada gudaheeda kula yeelan lahaa dhallinyarada magaaladaasi gobolka mudug wasiir maxamed bare oo gaalkacyo u tegay ka qaybgalka bandhiga nabadda iyo markii dambe dhallinyarada magaalada ku booqatay hoy uu ka degay dhinaca galmudug halkaasina uu kulan gaara kula yeeshay waxaana xalay inta badan gaalkacyo xaaladeedu ahayd mid aada u degan islamarkaana uu ku qaabilayay halka uu ka degan yahay kooxo dhallinyaro aqoonyaano oo reer puntland ah waxaana ay ka sheekeysanayeen fursadaha iyo duruufaha wajahaya dhallinyarada soomaaliyeed waxaana uu ku bogaadinaya dhallinyarada labada dhinac puntland iyo galmudug inay sii xoojiyaan isdhexgalka iyo nabadeynta gobolka mudug oo bilowgiisa ahaa halabuur dhallinyaro maalmaha aan joogo magaalada gaalkacyo buu yidhi waxaan kulamo la yeelan doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan dhallinyarada labada dhinac ayuu ku yidhi qoraal uu ka soo saaray kulankii gaarka ahaa balse uu ka hadlin kulankaasi uu joojiyey haddaba waxaana ugu baaqayay dhallinyarada galmudug in intooda badan ay ku biiraan abaabulka kooxdaasi maamulka galmudug waxaa ka socday kacdoon shacab oo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab waxaana gobolka mudug uu ka mid yahay deegaanada uu ka jiro kacdoonkaasi iyadoo dhallinyarada deegaanka ay markaasi
abaabul ugu jiraan dagaalka dhanka kooxdaasi al-shabaab. bal dhanka kale warbixinada kale aanu idiin soo gudbinayno ayaan sii wadeynaa saaxiibayaal. xogayaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed Somali Journalist Syndicate SJS ayaa lagu xiray magaalada muqdisho. cabdalla muumin waxaa la sheegay inay xireen ciidamo ka mid alaamaha amniga. saaka ayuu sheegay in ciidamo ka tirsan niisa ay soo weerareen xafiiska ku leeyahay magaalada muqdisho, waxaana uu ka mid ahaa ururo kasoo horjeestay xadidaadda ay dowladdu kusoo rogtay wararka markaasi ku saabsan al-shabaab. dhinaca kale wararkan naga soo gaaraya degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegayaan in qarax halkaasi ka dhacay shalay lagu diilay markaasi guddoomiyaha degmadaasi sayid cali ibraahim. wararka aynu helnay waxay sheegayaan qaraxa miinada nooca dhulka lagu aaso in la beegsaday xilli uu maraya duleedka degmada qoryooley, waxaana la geeriyooday qaar ka mid a ilaaladiisa. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo kuwa ammaanka degmada qoryooley ayaa tagay goobta qarax ka dhacay, iyagoo halkaasi ka qaaday meydka guddoomiyihii degmada qoryooley iyo qaar ka mida ilaaladiisa. qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa waxaa looga soo horjeestay go-aanka ay dowladda soomaaliya warbaahinta uga mamnuucday in ay tabiyaan wararka la xiriira al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda soomaaliya iyo dowladaha taageera. qoraalkan ayaa waxaa lagu yidhi xuquuqda iyo waajibaadku waxay qeexaan in saxaafadda xorta ay xaq u leedahay in ay soo bandhigto aragtiyo kala duwan iyo mas-uuliyad bixinta xog saxa. sidoo kale maraykanka ayaa ku dhiirigeliyay dowladda soomaaliya iyo warbaahinta soomaaliyeed in ay si wadajira uga shaqeeyaan horumarinta amniga oo ay ku jiraan badiqabka suxufiyiinta iyo xorriyadooda warbaahineed. sabtidii toddobaadkan ayaa wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya waxa ay ku amartay warbaahinta madaxa bannaan inay joojiyaan tabinta wararka la xiriira al-shabaab, taasoo ay kasoo horjeesteen ururka saxaafadda soomaaliya. dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xogayaha arrimaha dibadda ee UK ama ingiriiska James Cleverly ayaa qadka isgaarsiinta kaga wada hadlay qodobo ay ka mid yihiin in la xoojiyo xiriirka labada dal. xogayaha arrimaha dibadda ee UK ayaa qoraal kooban ku daabacay bartiisa Twitter-ka isagoo sheegay in dowladiisa ay sii wadayso taageerada ay Soomaaliya ka siiso dhinaca la dagaalanka ururka al-shabaab. sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in dalkiisa uu Soomaaliya ugu deeqay sanadkan in ka badan 50 milyan oo lacagta Ingiriiska, taasi oo ay si gaar ah loogu qorsheeyey in lagu taageero shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan, gaar ahaan kuwa ay haysato cunayarida, biyo la-aanta iyo adeegyada kale ee dhinaca caafimaadka. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa inta lagu guda jiray wadahadalada waxa uu dowladda Ingiriiska uga mahadceliyey taageerada ay siiyaan Soomaaliya, isagoo ugu baaqay inay dardar geliyaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa taageero u raadinaya howlgallada bilowday ee ka dhanka al-shabaab, isagoo safar ku tagay dalalka Etoobiya iyo Uganda oo ka dalbaday in laga caawiyo la dagaalanka kooxaha al-shabaab. dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu magaalada Geneva ee dalka Switzerland uga qayb galay kalfadhiga 73aad ee guddiga fulinta ee hay-adda qaxootiga adduunka. kulankan oo ay wasiir Fiqi ku wehelinaysay ka qaybgalka ambasador Ebian Maxamed Saalax oo safiirka Soomaaliya ee dalka Switzerland ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo wasiir Fiqi ka jeedisay kulanka, waxaana uu hay-adda iyo beesha caalamkaba uga mahadceliyey dadaalada ay ku taageerayaan Soomaaliya iyo sidii xal waara loogu heli lahaa kuwa dhibaataysan ee qaxootiga. wasiir Axmed Macalin Fiqi waxa uu guddiga hordhigay xaaladda guud ee dalka, isagoo sheegay in 31 Agoosto 2022 wixii ka dambeeyey uu taagnaa walaaca dowladda federaalk ee hay-adda qaxootiga adduunka ee ah dhibaatada saameysay dad gaaraya ilaa 3.1 milyan oo isugu jira barakacayaal, kuwa dalka dib ugu soo noqday, qaar magangelyo doona iyo qaxootiba. wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo sii hadlaya waxa uu yidhi Soomaaliya waxay ka mid tahay saxiixiyaasha baaqii Nairobi ee 2017 oo qorshe xal waara iyo wada shaqeyn wax ku ool ah IGAD lagala shaqeynayo sidii xal waara oo horumar loo gaari lahaa qaxootiga loona gaarsiin lahaa gobolka, way ku jiraan in la abuuro xaalado ay dib ugu noqon karaan. xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii dadka Soomaaliyeed looga caawin lahaa abaarta ku habsatay, waxaana ay taageero ka codsatay hay-adaha caalamiga iyo kuwa markaasi gudaha si gurmad loo gaarsiiyo dadka ay saameeyeen abaaraha. waa hagaag qeybihii ugu dambeeyey ayaynu isla soo gaarnay xubinteenii dhanka hadalhaynta Etoobiya ayaan eegeynaaye kooxda TPLF ee dagaal kula jirta dowladda Etoobiya
ayaa warbixin ay soo saareen waxay dadka u dhashay gobolka Tigray ugu baaqeen inay u soo baxaan safka hore ee dagaalka oo ay qortaan ama qoriga qaataan si ay isaga difaacaan ciidamada soo duulay Ethiopia iyo Eritrea. Waa sida hadalka ay u dhigeen kooxda TPLF. sidoo kale kooxda TPLF ayaa ku eedeysay dowladda Ethiopia iyo Eritrea in ay duqeymo joogtaha ka wadaan goobaha ay degan yihiin dadka rayidka iyagoo ka dhigaya in ay markaasi duqeynayaan fariisimaha TPLF. baaqan ay kooxda TPLF soo saartay ayaa kusoo hagaagaya iyada oo dib u dhac ku yimid wadahadaladii nabadeed oo ay soo qabanqaabiyeen midooda Afrika kuwa oo lagu waday in toddobaadkan madaxiisa ay ka furmaan dalka Koonfur Afrika. dowladda Ethiopia iyo kooxda maamusha gobolka Tigray ee TPLF ayaa labadooduba waxa ay imika ku celceliyeen in badan in ay mar walba wadahadal nabadeed diyaar u yihiin, balse waxaa marba marka xigta sii xoogeysanaya dagaalka iyo duqeymaha ka socda gobolka Tigray. dagaalkan dambe ayaa bilowday bishii 8 ee sanadkan kadib muddo aan badnayn oo xabad joojin ay sameeyeen labada dhinac, iyada oo bilowgii dagaalkan uu midba midka kale ku eedeeyey in uu xabadda isaga u hor bilaabay. dowladda Ethiopia iyo Eritrea ayaana weli ka hadlin eedeymahan dambe aan iraahday ee TPLF ay ku eedeynayso inay duqeymo joogta iyo weeraro ay ka wadaan dowladda Ethiopia iyo Eritrea ee gobolka Tigray.